fartuunay gabar ka mid ah asxaabteena ayaa waxay ina soo weydiisay inaan ka hadalno Cuthmaaniyiinta marka insha Allah taala taasa maanta la faguri doona waa dheer yahay klibka insha Allah taala qaybta inta soo galna mugi inta kala ka daawada dhanka YouTube-ka insha Allah klibka dheer yahay sax una dheeraan doona marka su'aasha ugu horeysa fartuuna waxay tahay sidee ayay ahayd dawladda Cuthmaaniyiinta maadaama ay ahayd dawladdii ma arkin oo muslimiinta ay ugu dambeysay dawladdan horta gabadhaas waa ku saxsantahay maasha Allah waan ugu soo jawaabnay sababtoo ah waa dawlad qaali oo culus waana dawladdii u dambeysay ee islaam wal muslimiina waa dawlad culus oo muslimiinta ay lahaayeen kaalin buuxdana ku lahayd difaaca caalam islaami muddo 6 qarni barayna jirtay sax marka oo ah aakhir dawla islaam muslimiin isku haysay dhul weyn oo culusna ka talinaysay oo maxay ahayd Aasiya dhexe iyo meelo fara badan qaliijka Shaam dhul badan ka talinaysay sax marka dawladdaas ahayd marka qaabka ku bilaabatay oo sheegi doona insha Allah asaasay waxa asaasay markii hore wax yar inaan looga hor dhac yar sameeyno markay bilaabanaysay qaabka ku bilaabatay qaab cajiib ah ahayd qoys Turki ah oo Turkmenistan gobolka halkaas jeena korkiisa ah yaa 400 oo qoys isla socotay oo soo qaxday ahaayeen waxay markaas dhulka islaamka weerar ku hayay Tataarka Mongolian dhulka islaamka soo weeraray marka qoys qaxay ahaayeen waa qarnigii 7 bilaabatay 6 aakhirkiisii marka qoyska markay soo qaxeen meel dhexe ay marayaan 400 qoys isla socotay ahaayeen oo Turki ah oo meel dhexe marayaan iyo waxay maqleen qaylo meel ka yeerayso markaasna Aasiya dhexe waxa ka talinaysay dawladda leeyahay Salaajiqa dawladda oo iyana Turki ah oo dawlad sunni ah ee meesha ka talin laakiin wasi dhacayso si gabaabsi si ahayd waa dawladda Cabaasiyiinta ilaalisay oo kor u soo maxay ilaa inay dahada keentay Baghdad iyo Ciraaq dhulkan waxa ka talinaysay Cabaasiyiinta oo nuxuus yaa qarnigii 5 lixaad ka jiray Aasiyaas dhaxna dawladda Salaajiqa Turum la dhigi jiray dawlad fiican ay markii bilaabanaysay oo markaas si gabaabsi ah yani marka nimanka Romanis intay soo weerareen yaa marka meel qaylo la ilaaha illa hudur jihaad meesha ka socda dagaal ka socda meeshii qaylada milacsadeen mise waxay arkeen muslim la gumaaday oo niman gaalo oo saara meesha ku garaacayeen meeshii bay u hiiliyeen gaaladii baa meesha jag lagu siiyo lagu jabiyay walaasba nimankan muslimiinta soo qaxay halkaas kor Aasiyada kor ka soo qaxay iyo nimankan Salaajiqada waa isla Turki ah yaa marka dadkii soo qaxay la soo dhaweeyay dhul la siiyay beera la siiyay halkii degan nin marka waxa asaasay markii Ardaqal nin oo asaasay Erdogan hadda wuxuu faafiyay filimkan hadda socdo Turkiga ka socdo waxa lagu talagalay dawlad Cuthmaaniyiin in lagu barto hadda ma qal Soomaalida waxay u soo dirwaa Carabi waa lagu turjumay Soomaali waa lagu turjumay English afkooda laakiin way daawada Urdu aad baa loo daawadaa yani dawlad Cuthmaaniyiin iyo matalaya filimkaas sidii ku bilaabatay waxyaabo qabatay sax ninkaas Ardaqal hadda asaasay markuu dawladda xogaa yar asaasay Cuthmaan haddana waa ninka loogu magac dari doono Cuthmaan ninkaas Cuthmaan bin Ardaqal ku wareejiyay ninkaas dawladda si fiican u asaasay markaa Salaajiqadii marka way daciifeen maamulka waxay ku wareejiyeen Cuthmaaniintii ku wareejiyeen marka meeshii degay marka waxa la Romaniska meesha Aasiya dhexe ka tilaay riixeen marka Aasiya dhexe markaas Romaniska dawladda oo Turkida qirinaceeda yaa dhanka bari Yurubta bari dhinacaas oo Aasiya dhexe waxa dawladda Romaaniya qayb ka haysatay dawladda Romaaniya way riixeen Yurub ay gudaha u galiyeen waxay dhahan taariikhyahanaha naqal suraac al-islaami min al-Aasiya ila Europa loolanka islaamka gaalada ka dhaxeeyay Aasiya inta ka rareen ee Yurubta bari geeyeen markaas waliba hadana waxay soo celiyeen futuuxaadkii dhul cusub ee muslimiinta maxay ahayd ee islaamka galiyeen Finland meesha loo yaqaan iyo maxay ahayd Switzerland iyo meelahaas wadamadaas hadda Yurubta bari ah Bosnia iyo Herzegovina maxay ahayd Kosovo iyo Serbia iyo meelahaas oo dhan Georgia halkaas dhan ay islaamka galiyay waqtigaas islaamka aad u galay sax marka ayaga marka waxay ku abtirsanayaan Turkiga ninkaas Cuthmaanka ku abtirsanayaan marka waxayna ka curatay halkaas Aasiya dhexe ka curatay sax marka xilligaasi marka fartuuna ay mataqaana curanaysay sidoo ahaa caalamka islaamka waxay curatay Tataarka oo la jabiyay dawlad Cuthmaaniya oo dhacday dawlad Cuthmaaniya maxaan ka dawlad Cabaasiya oo dhacday dawlad Cabaasiya 656 dhacday dawlad yar Mamaalik la dhahayo markaas aad jirtay oo marka Masar iyo Shaam iyo ka tirsan adooma asaaseen 700 hijriye waxay aaseen caalam islaami oo marka dhanka bariga oo Tataarka dhulka dhigay dawladda magaalooyin fara badan oo burburiyay dawladihii yar yar ka jiray Khawaarizmi Salaajiq waa maxay dhan
دكم داكم أي مسيين وحب بوبي كرانا محي هتو أي بوبين يعني وحي صوب بحنا لير أسوأ وقت أدق وعالم إسلامي ودنك بريانا كدومي دنك حاجة أندلسي دنك عشان قلبات كي كدوميين ومقالين بدنا قبصة وحنا المدن الإسلامية سيدي بالكي عملوا كده هو بناين وقت كاس تضواد إلى حد إسدادي وقت الصباحين إسلام كي بدب وصنوليه waxay soo celiyeen الفتوحات الإسلامية وقتي عباسيين المسلمين دولك أمويين soo ay qabsadeen bas islaamku dawladda ka samaysteen islaamku gudaha yar uma gelin ma faafin دولك أندلس qabsa kada laakiin ayaga waa riixeen Romanis waxay meesha ka saareen aliyiri dawladda Kristiyaanka ee ka talinaysa Istanbul caasimadda Istanbul قسطنطينية أرثوذكسكا هي قبصدين إلى وريجن آسيا دحضن إلى وريجن يوروب قيبتي دبري هي إسلام جليين وسيفدان المسلمين توحي هرانا نقول هراء عصبلة الفتوحات كوقت الخلفاء الراشدين الأمويين إسلام المسلمين إفافنا ما سنة ضرب المسلمين يقولوا وريجين تيبي يسوي علينا الله marka islaamka wuxuu ahaa priority koowaad marka sidaasay u fiday jihaad kan way daneen jireen kursigana nidaamkii oo muslimiinta ay qaateen boqortooyo ahaa qofku inta wiilkiisa la wareegay systemkaasi ku shaqeyn jireen laakiin wax weyn oo dhulka islaamku ma u baahan tahay in aad dalbato gawaarida raaxada ee online-ka laga helo haddaba haddii aad joogto Nairobi la soo deg abka Faras adiga oo ku qoraya Play Store-ka ama App Store-ka Faras mar walba abka Faras fur oo ku qor halka aad u socoto iyo nooca gaariga aad qaadanayso gawaarida Faras degdeg ayay ku geynayaan halka aad u socoto shirkadda Faras waxa ay ku siinaysaa qiimo dhimis 15% sidoo kale ka faa'iideyso ofarada Faras ay bixiso toddobaad walba adiga oo dooranaya new offer intee gaareen marka ilaa waxay gaareen Moscow Ruushka danka bariga Moscow ka gaareen danka halkaas iyo Chechnya halka Chechnya iyo Serbia Bosnia danka Yurubna ka gaareen Soomaaliya barbari soo gaareen aliir wala Axmed Gure iyo dawladda yar meesha ka jiray inkastoo xoogaa ka sikadeen markii dambe oo marka ayaga dhulka muslimiinta meelaha muslimiinta ka tilmaayay maysan weerari jirin hadii meeshan dawladda yar muslimiin ka jirto mataaban Morocco kale maysan gelin waqooyiga Afrika markay maxay ahayd Portugiiska soo weeray Isbaanishka way ka riixeen hatta 300 sano waxay ku dagaalamayeen Andalusna sidii loo soo celin lahaa ay ku dagaalamayeen xagga bariga sidoo kale ka faafiyeen khaliijka way soo galeen marka dhul weyn bay ka tilmaayeen waxay meesha ka saareen dawlad liira Mamalik oo niman adooma oo aydan tataarka jibisay oo markaas si daciifaysa meesha ka saareen dawlad kale Shiica Safawiir yiraahdo Iran ka talinaysay iyo Aasiya dhexe aydan qayb ka haysatay aydan way ka saareen meesha waxay meesha ka saareen Boortaqbada cas oo meel loo lambadan ahayd Boortaqiiska bar waxay damceenayeen inay nabi jasadkiisa la baxaan oo xaramkay soo weerareen dawlad Cuthmaaniya ka saartay meesha dhan badi dhan waa la xiray ciidan Cuthmaaniyiin la dhigay Masar ila wareegeen Shaam ila wareegeen ilaa barbari soo gaareen ilaa barbari soo gaareen marka waxa way dawladaas yaryarka ay sheegay sidoo meesha ay ka bixiyeen waa kuwii jiray xilliga kuwii jiray waqtigaas waa oo jiray marka yaani muslimiintu way soo nooleeyeen marka laba gumaysiya marka dhulka islaamka soo galo waqtiga isticmaalul qadiim isticmaalul jadiid la yiraahdo isticmaalkii hore waa Isbaanish iyo Portugiis ay ahaayeen iyo Holland sidoo socday ahaayeen isticmaalkaas way hakiyeen Isbaanishka kale waxay Andalus markay qabsadeen muslimiintu way soo ceersadeen Liibi meelahaas ay qabsadeen way ka saareen Portugiiska bada cas inuu qabsado way ka ceeriyeen inkastoo waliba Soomaaliya xataa fadli badan lagu sheegay inay ku Soomaalida inay Portugiiska geeska Afrika dharbaxa kulantay ku dhufteen mamlakooyinka ka jira Ajuuraanka iyo Ifaadi kuwa la dhahay ay riixeen oo Portugiisku geeska Afrika dhanba ka cararay oo Mombasa meelahan iyo Lamu iyo meelahaas uu ku hakaday oo xeebta dhan laga ceeriyay marka hadana dawladdaas marka maxay wax tawxiidul caalam islaami way mideeyeen dhulka islaamka way mideeyeen India oo dawlad Mongolian ka talinaysa bas ee faraha ka qaadeen maysan gelin yaana dawlad muslim oo Mongolian ka tatarka markay jabeen laba qayb u kala jabeen qayb waa islaameen qaybna meesha ka imaadeen ku laabteen qaybta islaamta India Afghanistan iyo Bangladesh dhulkaas qabsatay qaybta maysan taabanin dawladdu sidoo baaqan ku xiriir ka dhaxay wanaagsan bas Morocco kana dawlad yar oo dawlad Sacuudiya waxa la dhahaa ka jirtay maysan taabanin Andalus qarnaada ka nooleed bas ka soo hartay qarnaada oo isku dayeen soo celin oo magaalooyinka dumay way ku guuleysan waayeen 3 qarni iyo maxay hato iyo dagaal ka wadeen markii dambe iyada dawladda hoos soo dhacday صح marka waxyaabahaas waa waxyaabaha ugu waaweyn oo ay qabatay dawladda
صح يعني waxaa la dhihi karaa dowlad militarigeedu aad u xoog badan yahay ee ahayd dhulka islaamkana muddo 6 qarni bar aad u ilaalisay damaci reer galbeedka dhulka islaamka ee soo galaan ay fashilisay wax badan ee muslimiinta maxay ahayd u qabatay صح ma aan dowlad dhismaha iyo xadaarada xooga saarto ما هي ma dhulka islaamku iska dhisnaabo oo wixii cabaasiyiintii waqtiyadaas iyo mamaaligtii iyo dowladihii yaryar faraha badnaa yaa dhisa ayaga waxay xooga saareen jeeshkii jihaadkii islaamka inuu priority ku waadiyo صح dadka ugu caansanaa waxaa ugu caansanaa ninkii aasaasay Uthman waxaa ugu caan Murad al-Awwal Murad al-Thani Salim al-Awwal nin la yiraahdo Suleymaan al-Qanuni gaalada aad u nacbihiin صح nin gaalada aad u nacbihiin islaamkana daacayad fara badan ay ka fureen صح waa ninka dowladda aad u balaariyay oo dowladda meel fiican oo qurux badan gaarsiiyay ilaa barbar uu soo gaarsiiyay oo hatta Faransiiska intuu warqad u qoraaliyay maalmaha Paris dhexdeeda qisooyinka la sheego qosolka badan leh banaanka lagu nineekinayo heesay wax ka galabtii wax ka soo warqad u qoro boqorkii Faransiiska wuxuu yiri magaalada Paris anaga inoo dhowdo dhahay Turkiga fadhiya marka Istanbul fadhiya wuxuu yiri waxaan loo sheegay in maxay ahayd banaanka maalintii munkar iyo qamre iyo fisqa banaanka la soo gashay galabtii ay ku damaashadaan caasimadaadana anaga inoo dhowdo hadhow waxaas anagana soo gaaray bulshada nooga fasaadinaysa sidaa daraaddeed waa inaad joojisaa yiri 100 sano ay Faransiiska Paris oo magaalo fisqi badan dadka banaanka dhexda kuma damaashadaan cabsi ay ka qabaan dowlad Uthman inay soo weerarto صح ninkaas Suleymaan al-Qanuni umada ninka Istanbul furtay محمد الفاتح محمد الفاتح شنبوق wuxuu furtaa la yiri 857 hijriyada taqriiban qarniga 15 meelahaas oo la wareegay waa ninka riday kaniisadda ortodokska ilaa wuxuu ku dhintay ilaa xuduudda Itaaliya soo dhahay kaniisadda qaybteeda Katoliga ridaya hadana oo Yurub oo dhan muslima ka dhigaya iyo geeriyooday waa la sumeeyaa la sheegaa محمد الفاتح waa nin aad u wanaagsan oo musalsalkan ku jira hadda marka daawato wad arkaysaa محمد الفاتح uu ka dhex muuqda marka اسطنبول مكاتب قاب كوفر تحت مجال أو صح نبي ولا لا تفتح عن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جدا فصول كاسي شيء وحد فرن دونتان ولو وريق دونتان قسطنطينية ومجال وقت أسوس الرئيسي أمير كفرن دونا يعيدا كفرن دونا يا أوفض لبدن ولا معاوية ورادية عباسين توارد صدق إتمام جار المسلمين تسكو ديانا لي إن قبصنا مجالس ويقبصن وين مجال سب في عن نفس عن أولسن أو رومانس إنجنير كفر هذا كذا أو لجل وين مركز أسرع وحوس سمي عليه مال بريج هذاك أنتو سمي دربيا أكو هذا رسنا دربي جالس مركز دربي جا مركز أو حكي صوتور جيران طب نار مدفع صوتورين مسلمين حقا قل عيد مركز badda iyo magaalada waxa u dhaxay meel wacra dul adaga u dhaxay dulkiibu inta baabi'iyay injineer u yaala oo hagaajiyay habeen madow la hagaajinay waa wixii dhan cagta marsiiyay oo wuxuu ka sameeyay buundadii ciidanka habeen madow marsiiyay markaas waxay ka war heleen Romaneski darbiga ciidanka muslimiinta oo darbiga ku hareeraysan darbiga la garaacay madaafiic dhag lagu siiyay waa galan markaas marka maalin qurux badan ay ahayd oo muslimiinta u soo hoyatay marka halkee ka dhigteen caasimadu waxay ka dhigteen Istanbul ka dhigteen marka hore Aasiya dhaxay degnaayeen oo soo Istanbul soo degay dowladda ka dhacaysa Istanbul caasimadeeda aad u mahadsantahay macal farduun adikana asxaabta aad u mahadsantiin tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xusuusin lacalla haddii aad rabtaan inaad su'aal macluumaad aad soo weydiisaan sida barnaamijka su'aalaha aad ku soo weydiisaan ama aan ka soo hadalno taariikh halkan hoose nambarkan inoogu dhaafa wixii fariinaha dhanka WhatsApp-ka